kalfadhigan aan caadiga ahayn ee ay yeesheen Golaha Wasiirada Jamhuuriyadda Somaliland oo uu shir gudoominayay madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo uu weheliyo madaxweyne ku-xigeenkiisa Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici ayaa dood iyo falanqeyn laga yeeshay oo daraska miisaaniyad sanadeedka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland ee sanadka 2018 uu ku howlgeli doono si loo ansixiyo miisaaniyada 26aad ee ay Somaliland yeelato madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa sharaxaad ka bixiyay muhiimadda ay miisaaniyadani leedahay iyo inay tahay mid guntigiijisa oo loogu daneynayo bulshada reer Somaliland. Golaha Wasiirada dooda aynu yeelanay iyadoo duruufo adag ku jira awgeed iyadoo oo xoolo dhoofkii naga xidhan yahay iyadoo meelo badan oo kala abaaraya dhibaatooyin ka jiraan in wasiir waliba iyo wasaaradda waliba ay tahay ay wax u tabanayso ee miisaaniyadda ku yar tahay ee dhibaatooyinka hor yaalla iyo miisaaniyadda hor kale ay ku yar tahay waxay noqotay laga maarmaan inaynu saa ku hawlgalno dhexda xidhanno duruufaha in haysta ee xoolo xidhan leh ee abaara leh isla qaadan waa arkaynaa suuqina sarafku waa ruxmaya isnaanu xallaan la inaga rabaa waxa ugu weyn dawladda lagu calantana waxa weeye dawladdu ha samayso xukuumaddu gitigiijis oo ha yareeyeen kharashka ay bixinayaan halkan ka duulay waa halkaa marka aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin wasaaradda walba iyada oo gitigiijis adag loo sameeyay inaynu haddana maanta ka wada hawlgalno waayo waa inaynu ku dhaqanaa waxa runta ah aynu hor yaalla aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa wasiirada halkii ay dhibaato walba la yidhi adigu isku filow geeji suuf iyo xanjay isku dhaji inuu ku qancay waxaan jecelahay dee dooda waa dimuqraadiyaddu waa in la doodaa aad loo kala duwanaadaa haddana lasoo ururiya waxaan jecelahay miisaaniyaddu sidaa ay tahay inaynu ku gudbino inu ku qaadano wasiirada inta ogoli gacantaa taagto yaa diidan aamusay Golaha Wasiirada Jamhuuriyadda Somaliland ayaa cod aqlabiyada ku meelmariyay ansixinta miisaaniyad sanadeedka 2018 madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa Golaha Wasiirada ku bogaadiyay sida ay u garab istaageen una ansixiyeen miisaaniyada qaranka Somaliland aad iyo aad baa u mahadsantihiin in xaaladda adag ay markii hore ka wada yaabareen wali waa yaabareen haddana guddigiisa wada qaadanay oo aynu fulino inta u bareen markii uu dhamaaday shirka Golaha Wasiirada Somaliland ay ku ansixiyeen miisaaniyada qaranka ee sanadan waxa warbaahinta sharaxaad dheer ka siiyay miisaaniyada uu Goluhu ansixiyay Maxamuud Warsamo Jaamac afayeenka madaxweynaha Somaliland oo dul istaagay cadadka iyo kororka ka muuqda miisaaniyada qaranka Somaliland loo ansixiyay ee Golaha Wasiiradu ay meel mariyeen miisaaniyadan ayaa cadadkeedu xudhan yahay 1 trilyan 687 bilyan oo shilinka Somaliland miisaaniyadan ayaa 34.5 kamida waxa loo jeeyay mashaariic horumarineed waana markii ugu horeysay taariikhda abid ee loo qoondeeyo cadad inta leeg mashaariicda horumarka sidoo kale waxa dusha ka ah kororka ciidamada qalabka sida mushaharka macallimiinta iyo raashinka maxaabiista dalka Jamhuuriyadda Somaliland miisaaniyadan waxay diiradda saaraysaa adeegga aasaasiga ah ee bulshada sida caafimaadka waxbarashada iyo biyaha iyadoo oo ku salaysan wax soo saarka beeraha iyo kalluumaysiga sidoo kale waxa saami looga qoondeeyay sanduuqa horumarinta dhalinyarada Somaliland iyo ka diyaar garowga aafada abaaraha ee dalkeena ku soo noqday maanta miisaaniyadan Golaha Wasiiradu ay ansixiyeen kadib waxa loo gudbiyay aqalka Golaha Wakiilada Somaliland oo ah aqalka sharci dejinta qaranka si ay uga gutaan waajibaadkooda dastuuriga isla markaana miisaaniyada 2018 ay u noqoto mid ansaxa oo qaranku ku shaqeeyo miisaaniyad sanadeedka 2018 waxay boqolkiiba 9 ka badan tahay oo daraska miisaaniyad sanadeedkii 2017 miisaaniyadan ay ansixiyeen Golaha Wasiirada Jamhuuriyadda Somaliland waa mid wax weyn ka tari doonta nolosha dhaqan dhaqaale ee bulshada Jamhuuriyadda Somaliland Ridwaan Caydiid Ismaaciil Akiid telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland qasriga madaxtooyada Jamhuuriyadda Somaliland